waayahay dhegeystayaal kusoo dhowaada qeybta dhegeysiga ee ha noolaato. maanta waa maalin jimcaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 24kii bishii 7-aad 2009. qeybtanna waxaanu kusoo qaadan doonaa xaaladda uu dalku haatan ku jiro. waxaa barnaamijka nagala qeyb qaadanaya madaxdii ha noolaato oo caawa ku sugan halkan aanu uga hadli doono maanta iyo xaaladda dalka Soomaaliya. ugu horeynba xogayaha siyaasadda ee xisbiga ha noolaato Cabdiweli Garaad ayaan jeclaan lahaa bal inuu wax yar inoo soo koobo, si kooban uga hadlo xaaladda dalka uu haatan ku jiro. Cabdiweli. bismillaah. xaaladda hadda ay Soomaaliya ku sugan tahay waa xaalad muxuu ahaato kala qaybsanaan ah oo aan habboonayn ummad ahaan wax lagu farxo ama ammaan aan noo ahayn. waxaa la yidhaahdaa fashilka ama burbur ku dhacay maamulka dawliga ah tusaalaha ugu fiican waxa ah Soomaaliya. haddaan usoo noqdo su-aashii aad i weydiisay Cabdi Naasir oo ahayd Soomaaliya xaaladeeda meesha ay ku sugan tahay, haddaan cabirka u celiyo 1990kii Soomaaliya waxay ahayd 18 gobol. 18ka gobol 5 ka mid ah waxaa gacanta ku haya gobolada waqooyi galbeed, waxaa gacanta ku haya muxuu ahaato oo ay yiraahdeen waanu go-aynaa secessionist way. saddexda ku xigta iyaguna muxuu ahaato wax yar bay u jiraan oo iyaguna waxay samaysteen xeerar ay kaga go-ayaan Soomaaliya inteeda kale oo ama muxuu ahaato federaal iyo hala soo maro ama muxuu ahaato gobolka gobol ahaan ugu xiga gobolka Galguduud. waxyaabo badan oo maamulo badan oo is-sheeg-sheega iyo ha jireen, laakiin xaqiiqatan wuxuu u qeybsan yahay maamulka al-shabaab iyo ahlusunna waljamaaca oo muxuu ahayto jabhad magac islaamiga wadata oo Ethiopia muxuu ahayto ay baritaagta weeye. wixii intaas oo dhaafo oo loo soo gaaro Hiiraan oo ay ka mid yihiin muxuu ahayto 9 gobol soo haray. 9ka gobol waxaa gacanta ku haya islaamiyiinta oo xisbul islaam iyo shabaab leh. aan ka duwno musawirada dadka kale ay saaraan oo muxuu ahayto nimankan islaamiyiinta inay ama muxuu ahayto wax kale u jeedaan ama qolo kale ay yihiin. waxa fiican in loo fahmo muxuu ahayto hal question garay haddii la rabo siyaasadda directionka ay ku wadaan, laakiin in ay home ground yihiin oo dad Soomaaliyeed oo jabhad Soomaaliyeed oo usuusha iyo mabaadi'da Soomaalida iyo Islaamka iyo muqaddasaadkeeda wax muxuu ahayto ku dhisan. waxa kaloo la sheegaa muxuu ahayto dowladda federaalka oo ku meel gaarka ama dowladda midnimo qaran. taasi wax jira ma ah. waxaan rabaa inaan meeshan ka sheego wax jira inayna ahayn. golihii wasiirada iyo baarlamaankii iyo muxuu ahayto waxyaabihii la sheegi jiray oo dhan waxba kama ay joogaan oo muxuu ahayto dalkii waa ka cararay. laakiin muxuu ahaa ciidamada Amazon waxay kontroshaa airportka iyo dekedda iyo guriga shaqaalaha iyo kilometer 4 ilaa Villa Soomaaliya. label ahaanna waxaa u jooga meeshaas oo label madaxweyne, ra'iisul wasaare, waxyaabo noocaas oo kale. nimankaas dowladda federaalka inay dowladnimadii lumiyaan waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah shacabkii Soomaaliyeed oo ka tegey oo muxuu ahayto waxyaabihii ay ballan qaadayn sharaacan ku dhaqmaynaa dowlad midnimo qaran wey. waxyaabihii oo dhan ballamihii markay ka baxeen iyo directionkeeda markii la arkay dadka hareen oo ay kaga soo hareen oo keliya 4 wardlord. for example goobaale iyo qaybdiid iyo indhacadda weeye hadda waxa ku heeran oo dad muxuu ahayto dadku ay wada yaqaanaan muxuu ahayto doorkii ay ku lahaayeen Soomaaliya burburkeedii. marka dunuubta ay dadka ka galeen inay ballamihii uga baxaan, inay muxuu ahayto ambitionkii iyo ku talagalkii iyo dadkii maaragtay inay dhulkii qaar gataan oo baddii beeciyaan oo waxyaabahaas oo dhan dadkii marka waa ka haray oo waa ka baxay. bal waxay ugu dareen inay laayaan oo xasuuqaan. maalinkii xabad lagu rido nimankan muxuu ahayto muqaawamadu ay xabad ku ridaba
suuqa bakaaraha waxaad maqlaysaa intaasoo madfac baa lala dhacay, waa dadkii xasuuq noocaasa ku socda. marka kuwaas legitimacygoodii waxaaba qaadayba 4,500 ee amisom oo muxuu ahaay sida arxandarada a dadka u leynahayo. soomaaliya masawir guud markaan ka bixiyo anigu intaasaan kusoo ururin lahaa. waayahay, wuxuu ahaa xoghayaha siyaasadda xisbiga ha noolaato cabdiweli garaad. cismaan, adiga haddaan ku weydiiyo, waad maqlaysay cabdiweli garaad sida uu dhigay xaaladda hadda uu dal ku jiro. maxay kula tahay adiga meel xal uu jiro ma bidhaamin kartaa, mase maxay kula tahay dhinacyo xalku naga jiraa bay kula tahay? cabdinaasir, intaanan u gudbin xalka aan tilmaamo waxaan uu ka sheekaynayo walaalo cabdiweli garaad ma wax iska dhacay oo otomaatig ah oo ummaddan sidan u qaybsanto sidan u burburtaa, mise waa wax laga shaqeeyey? shakhsiyan waxaan ahay dadka nacab in eedda ay leeyihiin cid kale ay saaraan oo yidhahdaan waxaasaa naloo geystay. laakiin tani way soo dhaaftay, alamtaraa way soo dhaaftay. marka aad eegto inta lugood ee ummaddan lagula jiro, inta lugooyo ee lala daba taagan yahay, inta meelood ee loogu shirayo sidii loo qaybin lahaa, sidii loo burburin lahaa, sidii dadkan loo maduugi lahaa, waxaad arkaysaa qadiyadda soomaaliya inay tahay qadiyad ka duwan qadiyadaha kale international politicska. yaa ugu jira waxaa ugu jira 4,500 oo askari baa jooga oo cid alla cid keentay aanaan garanayn, oo maalin walba la dhacaya intaas oo kun oo madfac ummadii, oo marka warka aad akhridana la odhanayo dhinacyadays hayaa dadka waxyeelay. cid alla odhanaysa cid war dadkan maxaa loo laynayaa, dadkan cid u yeelatay ma jirto, cid rabtaa ma jirto, cid jeceli ma jirto, dadkiina way laynayaan. taas waa mid. waxaa ka mid a dowlad alle dowladdii soomaaliya u dhalata addisaba iyo nairobi iyo maraykan unbaa burburinaya. waxaa ka sii daran wax alla wixii ummadda dhibaatada u geystay waa la fangaraynaya. 20 sannadood ayaa ummaddan hogaamiye kooxeedyada lacag lagu siinayay, lacag kaash inay isbaaro waddada dhigtaan. waxaan xusuustaa dowladdii carta cabdiqaasin malasanaawi waxtaa wuu bariyey, wax kasta uu sameeyey, iska keydaa. markaasuu marba shuruud xasan daahira weys dhoofi waayo waa dhoofinaya, waxaa samee wax walba inta laga seexdaa haddana lagu soo hubiyey hogaamiye kooxeedyadii. maanta markii dadkii kaceen ayaa haddana wax alla wixii markab joogay baddii laysku keena. waa baddii, waa cirkii, habeen walba B52 iyo A32 iyo adduunyada iyo wax alla waxaynu diyaarad maqalnay baa ummaddii dulmaraya oganaya. meeshan yar ee la baabi'iyey ee loo tashaday waxaa loogu talagalay dalkan weynaantiisa la arkay, khayraadkiisa iyo istaraatiijiyadiisa. dadkan ku noolna waxaa la arkay aqoontoodu inay yar tahay, itaalkoodu u yaryahay, tol inaanay lahayn, ehelna inaanay lahayn. kabacdina waxaa loo fikiray dadkan intay ku dhammaan karaan. 50 sannadood hadday ku dhammaadaan khalaas dalkan wuxuu noqon karaa dal la qaato. marka runtii gacmo badan baa ku jira, xalku wuxuu ku jira markaa maadaama inu intaasoo cadow leenahay oo ina kulaalaya oo inoo fikiraya oo inoo tashanaya. waxaa muhiima in waxaan la ilaawo, dib loogu noqdo. waxaa ka daran inta gudaha kala shaqaynaysa, saxaafaddii baa la shaqaynaysa, xitaa wax kala daayo. waxaa la shaqaynaya dad isla khayr baa samaynaysaanoo culimo ah baa xaggii kale loo adeegsanaya inay cadowgii u adeegaan oo siyaasaddii cadowga ugu adeegaan. ummadda nooc walba waa laga soo gelay. ganacsatadii baa ka daran, sun dhacday bay u keenayaan, daqiiq dhacday bay u keenayaan, dawo dhacday bay dadkii u keenayaan. waxay qayb ka yihiin gumaadka dadkan in la tirtiro si dalkan loogu haro. maxaa xalku ku jira markaa? xalku wuxuu ku jiraa inaan baraarugno. intaynaa horta talaba isugu iman oo geed fadhiisan, horta aan baraarugno, aan ogaano in balaaya nagu socoto, balaaya inay nagu socoto. gobol walba kii yidhahdo gobol yar baa noqonayaaba waxa la siinaya intaasoo milyan, dastuur samayso, sharci samayso, calan samayso. waanu baraarugno, aan ku baraarugno wadaniyad, aan ku baraarugno qarannimo, aan ku baraarugno soomaalinimo. haddaan baraarugno waa halkii islaantii waxay tiri ordo geedkaa tago afkaysa saarsaara inamadeedii oo loo tashanaya intay aragtay. haddaan baraarugno cadowguna laga yaabaa inuu yareeyo camaliyadiisa. marka anigu xanuun arkaya, bal horta wax kaleba ha joogtee qofku inuu fahmo dalkan in lagu soo duulay oo aan cid kaliya ku soo duulin, dad badani ku soo duuleen, oo aan meel kaliya lagaga soo duulayn, dhulkii lagaga soo duulay, cirkii lagaga soo duulay, baddii lagaga soo duulay. intaa haddaynu garanno waxaan qabaa inay tahay baraaruga.